dugsiyada al irshaad schools بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أرضي مالي ونكسن ومالين كلي عشرة دين أي نكون جانني قابك أونلاين كا ما أنت حسيت كواذا حندقنا حسد مادة حسابته أرضي ما أنت أي نسكب لعبنا حسد دينا وما تسبان كقول حساب ما أنت حندقنا 10 عصب وحنصور دميني لبا chapter أو مديها addition isku geynta chapterkii kale isna ah oo shalay noo dhamaaday subtraction ka jaris ama ka goyn maanta waxaan dhiganaynaa chapter cusub oo magaciisu yahay ciwaankiisu yahay shaybis chapterkan ciwaankiisa waxa la yiraahdaa shaybis qaababka waa qaababka sawiradan bartan aan ku muujiyay shaybis qaabka koobaad ama sawirka koobaad aynu dhiganaynaa maanta waxa weeyaan circle waa sawirka bartaan ku sawiray circle waxa la guri circle hadaba waa maxay circle waxa la guri shape like a ball wuxuu u eg yahay oo uu sawiran yahay sida kubadda oo kale waa adiga arkaya caruuray waxa la yiraahdaa circle maxaa la yiraahdaa circle maxaa tahay waxa la guri shape like a ball wuxuu u sawiran yahay oo u dhigan yahay sida kubadda aad ku ciyaartaan oo kale marka hadaad aragto sawirka nooca oo sawiran ee sida kubadda oo kale u eg magaciisa waxa la yiraahdaa circle waxa la guri wuxuu u sawiran yahay shape like a ball sida kubadda aad ku ciyaartaan oo kale ayuu u eg yahay oo u sawiran yahay shape-ka labaad ee aynu dhiganaynaa maanta waxa weeyaan triangle waa saddex xagal ama saddex gees buu leeyahay 1 2 3 triangle saddex xagal ama saddex gees oo maxaa tahay waxa la guri shape like a sambusa wuxuu u sawiran yahay oo uu eg yahay sambusaha ciyaalkooda garanaysaa qof waliba uu garanayaa haddaad sawirka sida sambusaha oo kale shape-keena saddexaad waxa lagu yiri rectangle waxa la yiraahdaa rectangle waxa la yiraahdaa laydi waxa weeyaan ardayow sawirka labadiisa dhinacna way isleeyihiin labadiisana way isleeyihiin shape like a table wuxuu u sawiran yahay qaabkiisu u sameeysan yahay miiska casharka aad ku dhigato ee aad ku qorato ayuu qaabkiisu u eg yahay shape like a table wuxuu sameeysan yahay qaabkiisu oo uu sawiran yahay sida miiska oo kale in ku celiyo rectangle laydi baa la yiraahdaa rectangle waa sawirka labadiisa dhinacna way isleeyihiin waxa la guri shape like a table wuxuu u sawiran yahay oo qaabkiisu u eg yahay miiska casharka aad ku qorato shape-keena afraad waxa weeyaan waad wada garanaysaan tan star xidigta shape like a star sida xidigta oo kale ayay u sawiran tahay oo qaabkeedu u sawiran yahay tan waad wada garanaysaan waa star xidigta qaabkani waxa uu yaalaa oo uu sawiran yahay sida xidigta oo kale shape like a star sorry halka waxaan ka booday like a star wuxuu u sawiran yahay oo u yaala qaabkaasu sida xidigta oo kale star
xidigta shape like a star wuxuu u sawiran yahay oo qaabkaasi u yaalaa sida xidigta oo kale ardayow waxaynu soo gudubnay shape-ka ama qaabka shanaad waxa la yiraahdaa square waxa la yiraahdaa square waxa la yiraahdaa square sawirkiisu waa ka waxa weeyaan mid afarta dhinac buu iska leeyahay labadan dhinac iyo labadan dhinac afarta dhinacba waa afar dhinaco siman oo isleega laba kastaaba labada kale leeyihiin ha ku khaldin rectangle waxa laba gooni isugu eegyahay labadaasuna gooni bay isugu eegyihiin labadaasuna gooni laakiin kani isagu afarta dhinac buu iskaga eegyahay waxa la guri shape wuxuu u qaabeegyahay uu sameeyay like a window sida daaqada oo kale qaybkeeda ayuu u sameeyay yahay magaciisa waxa la yiraahdaa square maxaa la yiraahdaa square waa qaabka shape-ka afarta dhinacba uu iska leeyahay waxa lagu yiri shape like a window sida daaqada oo kale ayuu qaabkiisu yahay oo uu sawiran yahay shape-keena lixaad kan waxa la yiraahdaa oval waxa la yiraahdaa magaciisa oval wadiga arkaya ardayow waxa lagu yiri shape like an egg wuxuu sameeysan yahay sida xabada beedka oo kale magaciisana waxa la yiraahdaa oval like shape wuxuu sameeysan yahay like an egg beedka arday waliba uu garanayaa xabada beedkii qaabkay u sameeysan tahay ayuu sameeyay magaciisana waxa la yiraahdaa oval arday 10ku maanta halkaas uu inoogu jooga chapterkeenaasu waxaan rajaynayaa inaad fahanteen si fiican ha loo sawiro oo 10ka loo qoro insha Allah xiisada ku xigtay intaan isku imaanayno si shaqaysta assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh dugsiyada al irshaad schools